oui. maqaaxida Oasis Mediterranean Grill oo ah maqaaxi cusub ayaa laga furay magaalada Minneapolis. xafladda daafurka maqaayadda Oasis Mediterranean Grill ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda laga soo kala doorto gobolka iyo degmooyinka uu ka kooban yahay Minnesota. waxaana daafurka maqaayaddaasi cusub hadallo dhiirigelin ah ka jeediyay xildhibaanad Ilhaan Cumar iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada lixaad Mudane Jamaal Cusmaan iyo maayarka magaalada Minneapolis Mr. Jacob Frey. aad aan maanta ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galo maqaayaddaanaytii cusub oo Oasis la dhahayo walaashay ay furtay siidar dhexdeeda. waxaan rajaynayaa haddee Soomaali meel kasta Minneapolis ay ku nool yihiin ama Minnesota in kulligood ay soo booqdaan oo ay ka soo qayb qaataan cuntadaanaytii iyo experience-ga Oasis Mediterranean Grill aad ka helaysid. Amino Bayo congratulations aad aan ugu faraxsanahay in aan arko hadda sidii businessyaalkaaga iyo maalin Ilaahay keena mid cusub aad noo furaysid oo Soomaali iyo Mediterranean iyo Middle East cuntadeeda oo isku wada jirta ah. hambalyaan ku leeyahay hambalyo reer Minneapolis kusoo dhawaada Oasis. Assalamu alaikum. Magayega wa Jacob Frey, Dolka Magalada, Minneapolis. It's a great honor to be here at the opening of Oasis. You know, Amina and her whole team, they do an incredible job. And this is right, of course, next to African Development Center. And symbiosis, this teamwork between two different entities and between different people, I think is going to help out a lot with both Oasis as well as the workforce training and development that is done through ADC. I'm really excited. Congratulations, inshallah. This is going to be a wonderful success. And the best goat. maanta farxad bay noo tahay inaan ka soo qayb galno furitaanka la furayo Oasis Mediterranean Grill oo Amino oo businesska halkan ka furtay. marka Riverside wuu soo noqday xaafadana ma taqaana ma sha Allah businesska u baahan ayaa imaanaya. marka hala support gareeyo local maxalada businessyadiina especially Somali businessyadooda ay leeyihiin waa classic studentiga iyo dadka meeshaan degan iyo cuntadan macaan ayaa lagu tagaa soo meerka noo sheegayba. marka aad baa u mahadsantihiin. Aaminana waxaan dhahaynaa shaqo fiican baa qabatay Ilaahay ma taqaana ku garab galo. annaguna waa soo dhaweynaynaa openingka restaurantiga laga furay degmada lixaad ee Minneapolis. ugu dambeyntii Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ayaa sameynaya kobaca dhanka ganacsiga ah iyagoona guud ahaan gobolka Minnesota ay ka jiraan ganacsiyo badan oo ay Soomaalida ku nool dalka Mareykanka ay ka hirgeliyeen gobolkaasi. waana gobolka ugu badan oo ay ku nool yihiin Soomaalida ku nool dalka Mareykanka. Thank you for listening. Please make sure to share, like, and subscribe to Runta News channel on YouTube, Facebook, and Twitter.